banaanbaxani oo ahaa mid aad u ballaaranaya waxaa dhigayay xoogsatada dekada weyn ee magaalada Muqdisho qaybahooda kala duwan waxayna dadkii banaanbaxay sheegeen inay aad ugu xun yihiin waxa ka socda gudaha dekada weyn ee magaalada Muqdisho oo ah in lagu xadgudbayo dastuurka dalka iyo waliba sharafta muwaadiniinta Soomaaliyeed waxayna sheegeen in wali aysan la hadlin madaxda dawladda Soomaaliya balse ay warqad u direen maareeyaha dekada laakiin wax weyn uusan ka qaban karin cabashadooda waxaana hadaladooda kamid ah sida tan shaqaalaha la yiraahdo muruqmaal baan nahay waxaan ka koobannahay rag mataqaana qaybo fara badan ayaan ka koobannahay sida daraadeed annaga dhididkayna ayaan cunnaa waxaan shaqaysanana ganacsataan ka qaadanaa mooryaan ma nihin isbaaro ma dhiganno sida daraadeed annagoo shaqaysanna oo dhididkayna cunna oo ka koobannahay 5,530 qofood ka kooban oo xamaali iyo wiishwade iyo kulli iyo marinahay kulli isku jira ayaa waxaan ugu soo duushay in la yiri shaqadii aan lahaydeen waa la inka wareejinayaa ana gudoomiyaha iskaashada xogsada dekada Muqdisho waxaan halkan ka soo gudbinayaa cabasho ay u cabanayso dawladda iyo waxgaradka ummadda Soomaaliyeed xogsada dekada Muqdisho tirada xogsatadu waa 5,311 xubnood annagu horumarin waa ogolnahay wadanka waxaan rabnaa horumarin hay'ad muruqmaalaha nahay oo u diyaara inay shaqaysato ma ahin mucaarad madaxweynahana waxa loo sheegay iyo xukuumadda iyo baarlamaanka inaan heshiis galnay wax heshiisa iyo wax qadarina oo nolol sameeya ma jiraan si ixtiraam darro ah ayaa waxa noola dhaqmay madaxda hay'adda Albayrak dawladda waxa dekada ugu wakiila maareeyaha iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka badda dekadaha arinta waa u gudbinay laakiin waxaan u dareenay inaysan maartay hadda wax weyn aysan ka qaban karin cabashadeena laakiin annagu ma arag مثلا مدحوينا ما أركين وكلام هذلين رئيس الوزراء ما أركين قدوم برا ما أركين لكن ما رأي وزيرك والله هذا اللي عباشة إنه أسرته ويسي إنه حكي قبطان banaanbaxana ayaa imaanaya xilli maanta dawladda Soomaaliya ay gacanta u gelisay howlaha dekada weyn ee magaalada Muqdisho shirkad laga leeyahay dalkaasi Turkiga Maxamed Ibrahim Maxamed Royal TV Muqdisho